السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مقال عصب aynu kaga hadlayno ka baxsashadii xabsiga Alcatraz ee cajiibka ahayd. Xabsiga idin muuqda waa xabsi ku yaala jasiirad oo biyo ku hareeraysan gabi ahaantiisba. Iska day inaad ka baxsatay xataa inaad ku fikirto baxsasho lama ogola. Sababtoo ah xabsigan waxa jooga 9 nin oo ilaala oo shiishihana oo maxbuuskiis ku dayno baxsado bartaas ka toogan kara. waxa soo kale xabsigan ku hareeraysan biyo aad u qabo oo xataa maxbuuska uu xabsigan ka baxsado biyahaas galo ma dabaalan karo oo ku dhimanaya sidoo kale libax badeeyo aad u halis badan ayaa ku jira badan oo qofka kala goosanayba wana xabsigii loogu ilaalada badnaa dalka Mareykanka saasay tahay oo saasoo dhan loo bumbooniyay xabsigan haddana waxa la isku day laga baxsado in badan laakiin dhamaantood way guul dareysatay marka laga reebo hal baxsasho mooyee halka baxsasho oo maxaabiistaas ku guuleystay ayaa keeni doonta in xabsiga sumcadiisu hoos u dhacdo oo isla sanad kadib baxsashadoodaas xabsiga la xiri doono lagana yaabo inaad qisan hore maqashay sababtoo ah qisadan waxay dhacday ka baxsashada xabsiga sanadii 1962 muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa qisada baxsashada maxaabiista Alcatraz qisado dhameystiran qaabka uu baxsanay qaabka uu qorsheeyeenba laakiin muuqaalkan intaan bilaabin fadlan subscribe saar haddii nagu cusubtay muuqaalka like na saar daawasho wacan intaan muuqaalka bilaabin aan isla faano xabsigan goorma la dhisay xaguu ku yaala yaasa lagu talagalay oo lagu xidhaa xabsigan Alcatraz la dhaho wuxuu dhacay jasiiradda Alcatraz la dhado 2 kiiloomitir kaliya u jirta magaalada caanka San Francisco gobolka California ee dalka Mareykanka jasiiraddan Alcatraz la dhadana waa jasiirad ilaa waqti hore soo jirtay ilaa waqtigii qaaradda Amerika la helay laakiin sanadii 1934 ee dalka Mareykanka jasiiraddan xabsi u bedelay oo lagu talagalay maahan maxaabiista caadiga laakiin tuugada waaweyn loo taageeli waayay sidoo kale maxaabiista isku dayeen jeelka ka baxsadan ayaa loogu talagalay si fikrada baxsashada iskaga loobaanba marka maxbuuskii la kari waayo ee xabsiga lagu hayn kari waayo isku dayno baxsada mar walba waxa lagu soo tuuri jiray jasiiraddan ama xabsigan Alcatraz la dhado saasay tahay oo uu yahay xabsiga lagu ilaalada badan yahay oo rag shiishihana joogan badi ku hareeraysan tahay waxa la isku dayin badan laga baxsado lagu guul dareystay marka laga reebo hal mid mooyee halkan mid waxana qorsheeya 4 nin laakiin 4 nin wada qorsheeya xabsigan ka baxsan 3 kamid ah baa baxsada mid ayaa soo hara mid ka soo haray sababtu u soo haray oo u baxsan waayay iyo wixii hal habeenkii la baxsanayba muuqaalkan inta ku jirnaa kaga hadli doona haddii isla faanay marka xabsigan heerka amaanu ka taagnaa Mareykanka gudihiisa heer tuugada ugu waaweyn ama maxaabiista ugu waaweyn lagu xidhi jiray 4 maxbuus oo qorshaha baxsashada fulin doonto waxa lagu kala magacaabaa Alan West Frank Morris iyo 2 walaalo la kala dhado John Angelin iyo Clarence Angelin laakiin ninka Alan West la dhado ayaa ah ninka fikradda baxsashada keenay waana ninka ku guul dareysta in xabsiga laga baxsado muuqaalkan aan kaga hadli doonaa sababta uu habeenka ugu guul dareystay inuu ka soo baxo xabsiga sababaha kan in 4 markii ugu horeysay la soo xidhana waxa weeyaan ninka Frank Morris la dhado oo ah ninka ugu caqli badan 4 wuxuu ciyaanimaysi ku soo koray nolol aad u adag taas keentay inuu tuugnimo bilaabo oo waxado ugu dambeyntina booliska ayaa qabtay oo xidhan xabsiga ayaanu ka baxsadaa kadib sanad marka laga soo wareego ayuu haddana isagoo banki dhacay booliska mar labaad qabtaan oo xabsigan Alcatraz ku soo tuuraan sababtoo ah ninkan uu nin xabsi isku dayno ka baxsado labada walaalo ee Angelin lagu wada magacaabana waxay ka shaqeyn jireen ciyaalnimadoodii beerow aabood Angelin lahaa beerta lacagta ka faa'iidaan ayaa ku yaraatay saa darteed waxay bilaabeen inay lacagtii faa'iiday beerta ka faa'iidi jireen qaadan tuugada Mareykankana ku beeraan badankana waxay wax ku xadi jireen oo isticmaali jireen bastoolada carruurta ay dadka ku baadhin jireen oo wax kaga xadi jireen ugu dambeyntii booliska ayaa qabta oo xidhay labadoodaba laakiin waxa isku dayeen xabsigii lagu xidhay ka soo baxsadaan saa darteed booliska waxay u wareejiyeen xabsiga Alcatraz ninkan ugu dambeeyay Alan West la dhadana waxa la qabtay isagoo isku dayno gaadhaxado kadib xabsiga ayaa lagu riday markii xabsiga lagu riday isku dayno xabsiga ka baxsado markii la arkay ninkan nin halis ah wala soo qabtay isagiina xabsiga Alcatraz ayaa lagu tuuray marka waxaan arki karnaa cid walba isku dayna xabsi ka baxsato in markii inta la qabto xabsiga Alcatraz la geyn jiray sababtoo ah kaas waxay u aqoonsanaan Mareykanku xabsi iloo siin doono maxaabiistani xabsi ka baxsadaan marka waxaan arki karnaa cid walba isku dayna xabsi ka baxsato in inta la qabto xabsiga Alcatraz lagu tuuri jiray 4 nin khibradooda soo is urursatay ayaa sababi doonta in xabsigan Alcatraz ka baxsadaan oo sumcadiisa dhulka la galaan haddaba fikradda baxsashada waxa iska lahaa ninka lagu magacaabo Alan West
maalin maalmaha ka mid ah iyagoo maxaabiistu shaqo maalmoodkoodii haysta mid wax rinjiinay mid hawlo kala qabanaya xabsiga dhexdeeda ninkan Alan West lagu magacaabo waxaa loo xilsaareen qolalkan ay degan yihiin korkooda uu soo xaadho isagoo qolkooda korkooda xaadhaya ayaa wuxuu arkay tuumbo doloosho oo xabsiga banaankiisa geynaysa qofka laakiin tuumbadan way dabacsaneed oo tuumbadu u dabacsanay ahayd qoryaha ku xidhanna qoryo la jabin karay ayay ahaayeen waxaanu arkay midda kale inay tuumbadan tuumbooyinka kale ee xabsiga ku yaala ka jilicsan tahay oo haddii la isku dayo tuumbadan laga baxo laga bixi karo marka Alan West uu soo cararay waxaanu u sheegay fikradan saaxiibkiisa qolka ku xiga deganaa Frank Morris haddaba ninkan Frank Morris la yiraahdo magacana si fiican u xasuusnaado sababtoo ah magaca ka dambeynay 4 xabsiga ka baxsan ama 3 nin aan yiraahdo Frank Morris marka wuxuu bilaabay inuu ka fikiro maadaama nin aqli badan oo halis badan oo ahaa wuxuu bilaabay inuu ka fikiro oo qorsheeyo qaabkii uga bixi lahaayeen xabsigan warun inuu Alan West soo helay fikradda warun inuu soo tuumbada soo arkay markii hore laakiin Frank Morris ninkan la dhaho ayuu ninka qorsheeyay khitadan lagaga baxsanay xabsiga Frank Morris ninkan la dhahana IQ-giisu wuxuu ahaa 133 macnaha dadka caadiga IQ-goodu waxa weyn 85 ilaa 115 xoogaa dad ayaa dhaafa isaguna dadkaas ayuu ka mid ahaa IQ-giisu 133 ayuu ahaa nin aad u caqli badan Frank Morris marka wuxuu sameeyay isla markiiba khidad wuxuu ku soo daray ama qorshe wuxuu ku soo daray labadii walaalo oo labadooduba hadana qolka ku sixiga labadan kala deganaa oo la kala yiraahdo George Angelin iyo Franklin Angelin saasayna ku noqdeen 4 qorshaha ku wada jira haddaba tuumbadan uu Alan West soo arkay waxay ku taalaa 4 toodan xabsiga ku xidhan ama qolalkan ku xidhan yihiin dabadooda gidaar ayaana markaa u dhaxeeya marka waxay u baahan yihiin inay gidaarka ka soo dhex baxaan kadib ay kor u baxaan oo tuumbadaas ay tagaan ay ka dhex baxaan haddaba tuumbadan ay rabaan inay ka baxaan ee Alan West soo arkay waxay ku taalaa tuumbadani qolalkan ay degan yihiin dabadooda macnaha gidaar ayaa u dhaxeeya tuumbadan iyo qolalkan ay degan yihiin marka waxay u baahan yihiin inay gidaarkan ka soo dhex baxaan kadib kor u socdaan oo tuumbada tagaan tuumbadana qoryaha ku xidhan ay jaraan ay tuumbadaas markaa ka soo dhex baxaan saadarteen kadib ay saa ku yimaadaan xabsiga banaankiisa laakiin su'aashu waxay tahay marka hore gidaarkan xabsiga sida uga soo gudbayaanba Frank Morris ninkan soo sheegnay waa ninka ugu caqli badan qorsheynayna qorshaana xabsiga kaga baxsanayaan wuxuu arkay shabag yar oo ku dhigsan gidaarka xabsigooda nin walba qolkiisa wuxuu leeyahay shabag yar laakiin shabagaasi maahan mid uu qof bini'aadam ka dhex bixi karo jirka bini'aadamka u mari karan waa shabag aad yar Frank Morris marka wuxuu arkay in gidaarku xogaa yar dabacsan yahay maadaama ay muddo ugu dambeysay la dayactiro sidoo kale meesha ku yaalana ay sababtay inuu gidaarku xogaa yar dabco marka waxay bilaabeen qorshe ay ku qodi lahaayeen waxayna sameeyeen marka xabsiga cunto loo soo dhigo malqacada ay ku cuni jireen badanka marka nin walba malqacad wax ku cunay marka cunto ka dhameysto uu soo xadi jiray oo jeebada uu soo gashin jiray marka waxay bilaabeen malqacadii ama qaadooyinkii ay soo xadeen inay gidaarka ku qodaan bilooyin ay qodeen godki yaraa shabaga markii hore Frank Morris soo arkay shabagii yaraa ay qodeen muddooyin bilaa ilaa ay ka weyneeyeen xoogaa jirka bini'aadamku meel uu ka bixi karo laakiin dhibaatada labaad waxay tahay gidaarkan qodaysa ma gidaarka xaafadiina ku yaalay ee waa gidaar xabsi ku yaala oo askar ilaalinayso oo maalin walba la soo maray ama qolkaaga la soo galayo marka seedu qarnaysa asagana nin walba afartoodan kamid ah godka yar oo qoday wuxuu sameyn jiray alaabaha kamanka muusigada lagu qaraaco ama dharkooda wax walba oo ay leeyihiin oo agaba ay dhigi jireen godkaas oo ku qarin jireen si aanay ilaaladu badan ka waragamaan is oranba dharkan waxba ka dambeeya waxaana badanka qodi jireen gidaarkan oo ka faa'iideysan jireen maxaabiista waxa loo ogolaa saacadii badh inay muusiga ama kaman qaraacdaan oo isku madadaaliyaan marka saacadaas ama saacadii badhkaas ay kamanka maxaabiista kala qaraacayaan ay bilaabi jireen afartani inay gidaarka qodaan si aan loo maqal waxaana soo kala sameyn jireen mar walba ilaaladu yara mashquulaan ama busy yara galaan ama keera tagaana way qodi jireen waxa soo kala cajiibka ahaa ee FBI-da Mareykanku xataa aad ula yaabtay maxaabiista xabsiga kula jira badankoodu way yaqaaneen oo way maqleen qorshahan ay ku dhaqaaqeen 4 maxbuus laakiin mid kamid ah maxaabiistaas oo dhan muu sheegin qorshahoodaas iska daanu sheegay bal way caawin jireen ba wax walba raggan u baahdaan si u baxsan way ku caawin jireen waxaana la dhahaa walaaltinimada xabsiga warbixin soo saartay FBI-da Mareykanku mar dambe oo maxaabiistani baxsadeen waxay sheegeen in qorshahan ay isla ogaayeen 8 maxbuus oo ku xidhan xabsigan laakiin mid kamid ah oo ilaalada xabsiga uu sheegay ma jirin
muddo bilooyina kadib waxay ku guuleysteen in godkii yaraa ay qodeen ay leekeysiyaan in yaroo jidhkoodu ka bixi karto oo qofka biniaadamka mari karo laakiin qorshahani waa wejigii koowaad oo keliya qorshahooduna waxa weeyaan si ay jasiiradda dhan gebi ahaanteedba uga baxsan lahaayeen laakiin hadda waxay hayaan qorshe ay xabsiga keliya banaankiisa ku aadi lahaayeen marka waxay u baahan yihiin xabsiga banaankiisa markay tagaan doon ay raacaan oo isticmaalaan sababtoo ah lama dabaalan karo oo biyahani waa biyo aad u qabo oo ku dhimanayo qofku soo kale nimankan waxaa caawiyey buugaagta xabsiga taala buugaagtan xabsiga taala ninkan welibana Frank Morris la yiraahdo aad buu akhrisan jiray makaanikinimo aad u fara badan uu ka bartay marka maalimaha kamid ah ayaa waxay arkeen buug ama sida qaarkood sheegaan journal ay ku qoran tahay sidee jaakadaha roobka laga gashto looga sameyn karaa doon waxa akhrisku markuu faa'iido leeyahay markan oo kale nimankani journalkaas ay soo akhristeen jaakadaha roobka laga gashta ee doonta laga sameeyo journalka ku qoran xabsiga aad ay uga buuxday laakiin ilaalada xabsigu marnaba kama fikirin jaakadaha roobka laga gashto ay ku baxaan iyagu isticmaalaan badanka doonaya laga sameyn doona ama cid ba isticmaali doonta oo ku baxsan doonta marnaba maskaxdooda kuma soo dhicin marka waxa bilaabay nimankani in fanaanada roobka laga gashto ay soo xadaan حتى محابيستي حبسة كلية جرت لفتر كذا أي عاون شري أو كو عاون شري إني صاحب فنان داس وحنا كو جولستين إن صوروا ريان كنتن جاكادات أو كون روك كلا حده لكن وحلا سكويستا حاجة جاكادات صدق كو كيدين لهاين صدق كلا حاجة كو حد لهاين وكو سمين لهاين دون تاني كو بحسنيان لكن ماشي مركو جورسين كسو هذا اللي ألان ويست وحاري أو تنبض كو سواركي ماشي سواركين ماشي وهابون أي كو سمين كران دون تودا laakiin dhibaatada xagaas ka taagan waxa ahayd ilaalada xabsigu way arki karaan qofka halka xaadaya oo meel qarsoonba maahan haddaba Frank Morris iyo Alan West waxay keenaan fikrad run ahaantii aad iyo aad u cajiib badneed Alan West aniraano wuxuu badanka xaadi jiray meeshaas si joogta ay weliba u xaadi jiray marka ilaalada xabsigu wuxuu ku qanciyay inuu meeshan daahmado ku xiro sababtoo ah markuu meesha xaadayo siiga iyo boorban ay ka soo daata oo hoos u soo daata welibana ogaan ayuu ciid meesha ka xaaday dhulka ugu soo daadin jiray oo askarta ay indhaha ka geli jireen marka askartu wuxuu ku qanciyay inuu meesha daah ku xiro si aan ciidan u soo xaaday ama boorkan u soo xaadayo aan iyaga ugu soo duulin oo aan dhulka ugu soo daadanin ugu dambeyntiina ilaalada xabsiga way ka baxsatay fikradani oo wax weyn ba kamay soo qaadin wayna aqbaleen inuu Alan West daah ku xiro meesha kadib markuu daha ku xiray goobtan waxa uu noqotay goob qarsoon ilaaladu aan arkaynin xafiis caadi ayuu noqday tanina waxa ahayd nacasnimo iyo iskeereysi ka timid ilaalada xabsiga oo arintan sidii looga qajilay awgeed 20 sano kadib baxsashadoodii ayaa la sheegaa inay arintani dhacday heerkaas ay Mareykanku uga qajilayeen fikrad xumidan ilaalada xabsigu la yimaadeen iyo sida ugu aqbaleen maxaabistaasi inay sameystaan xafiis yar oo gaar ah ama ay dah ku xiraan meel kamid ah xabsiga haddaba goobtii yarada ku xidhan Alan West Frank Morris waxay noqotay xafiis caadi ah waxay dhigan jireen alaabadii ay wax ku qodi jireen hatta doontii yarada xidhxidhaneen jaakadii roobka ay isku uruureen wixii oo dhan bay dhigteen doontii laftarkeeda meeshaas ay ku xidhxidhan laakiin dhibaato labaad bay jirtay intan ay korka ku maqan yihiin xafiiskooda ama meesha ay wax ku hagaajinayaan joogan qololkoodii sii joogaya mid kale hadii ilaalada xabsigu intay maadaan ay qololkoodii iyagii ka waayaan waxa bilaabmaysa in la baadhitaan ayana bilaabmaya marka halis ay geli doonaan xafiiskooda arna waa la ogaan doonaa marka labada nin waxay sameeyeen fikrad run ahaantii aad u cajiib waxay sameeyeen madaxyo caaga oo ay sii dhigi jireen sirrtooda go'ana hubin jireen si aanay marka ilaalada xabsigu soo maraan meesha aanu dareemin xagga laga maqan yahay ilaalada xabsiguna badanka markay soo maraan meesha arkaan madaxyo meesha yaalo waxay moodeen madaxyadii Alan West iyo Frank Morris labadii kale laakiin nimankani ma hurdaan korka ay ku maqan yihiin oo mashquulsan yihiinba madaxyadan idin muuqdaana waa madaxyadii caaga ahaa ee dhabta ahaa ee maxaabiistii 1942 maxaabiis ay sameysteen waana la keydiyay oo la xafiday haddaba su'aashu waxay tahay iyaduna madax laftirkiisa sidoo sameeyeen alaabay madaxan ka sameeyeen oo dhan xabsiga gudihiisa ay ka keeneen saamuun iyo waxay ka sameeyeen sawirkii yara gidaarka ka soo qodi jireen iyo sidoo kale rinjiga ama kalarkan waxay ka soo heleen maadaama maxaabiistu badankaygu gidaaradooda rinjiyeysan jireen rinjigii xabsiga ayay soo xadeen oo madaxyadan mariyeen soo kale timaana waxay ka keeneen labadii walaale Angelina ee soo sheegnay mid kamid Clarence Angelina la raado ayaa ka shaqeyn jiray timajara xabsiga dhexdiisa oo maxaabiista timo u jari jiray maxaabiista markuu timo u jaro kadib timahooda dhulka ku daatay ay soo qaadi jiray jaabada ku soo gurin jiray kadib kuwaas ay ka sameyn jireen madaxyadaas timahooda haddaba waxa hawshoodu wadaanba ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen in jaakadii kontonka ahaa ee roobka ay isku xilxidhaan kana sameeyaan doon ugu dambeyntiina waxa la gaaraa maalinkii caanka ahayd maalinkii baxsada rabeen
maalinka sumcadda xabsigan dhulka gelin doonaan 11 bishii 1962 markii la gaaray 9 barkii habeenimo leerashii xabsiga la damiyay waqtigiisa xashada la gaaray ayaa nin walba 40 kamida madaxaantii caaga ahaa uu sarrtiisa saaray gooy huwiyay isagina bilaabeen isku diyaariyo hawshii baxsashada waxayna bilaabeen in nin walba gidaarkii yaraayo qodi jiray uu furo kadib xagga ka soo baxo oo gidaarka dabadiisa iskugu yimaadaan 3 kamida ayaana gidaarkii qodo ka baxay marka mid laga reebo mooyinkaasina wuxuu ahaa Alan West ninkii fikradda bilowga keenay laakiin Alan West uu ku guul dareystay inuu godku maalimaha qodayay uu dib u furo sababtoo ah marka godkan xoogaa qodaanba waxay marin jireen sibir oo dib ugu celin jireen gidaarka meeshiisii si aan looga dareemin laakiin sibirkaas intaanu qalalinba ka hor way furi jireen haddana Alan West marka waxa la sheegay in aanu maalimaba furin gidaarkii saadartay sibirka caadi ugu dhagaba gidaarka oo uu adkaaday wayna ku adkaatay Alan West inuu gidaarka ka soo baxo laakiin saddexdii kale way ku guuleysteen ka baxaan isagina kameytigina waxa ku dhaheen doonta ayaan sii sameynaa laakiin sida ugu dhaqsaha badan gidaarkan soo jabi oo naga dabaymo laakiin Alan West nasiib xumihiisa uu ku guul dareysay inuu gidaarkii ka soo baxo saddexdii kalena markii Alan West suu kari waayay way iskaga tageen sababtoo markii hore ay ku heshiiyeen afarteen qof kamida ama qaar kamida hadii wax noqdaan inta kale inay wadadooda sii wataan laakiin waa yara xarun inaad adigu inta fikradii keentay sida Alan West oo kale haddana noqoto adigu kii guul dareystay baxsan kari waayay sababtoo ah saddexdan kale maalin walba si joogtay u furi jireen godkooda oo maalin walba ka warhayn jireen sawirkuna kama qalali jirin laakiin Alan West waxa la sheegaa inuu maalimo aanu furin si joogtay u shaqeyn jireen kuwan kale laakiin isagu maalimo ay joogtay iska yarada saddexdii nin kale marka way ku guuleysteen xabsiga banaankiisa tagaan khashaafadii ama leerashii waaweyna xabsigana ka gabadan soo kale shabagii xabsiga ku xeernaana ayr ay si fudud uga gudbeen kadib ay xeebta gaareen badda markay tageen waxay wateen jaakadii oo isku dhadhagan oo laakiin bilaa naqas ah waxay soo kale wateen aalada muusiga ee naqas kale laakiin cod beelada aaladaasi mid kale inta xabsiga ku jireen ay aaladan codkii ka soo saareen oo la soo hareen naqaskii kaliya kadib aaladaas ay ku naqaseen doontoodii yareed oo ay fuuleen subaxnimadii markii jariskii xabsiga la tumay maxaabiistii la wada istaajiyay ayaa ilaalada xabsigu markay xabsiga hor socdaan waxay ku amri jireen maxaabiista xabsiga inay u istaagaan oo ilaalada xabsiga si loo xisaabiyo inay joogaan kale laakiin markii la soo gaaray qolkii Frank Morris ninka la raado oo xalayba baxsaday qolkiisi markii la soo gaaray ay ilaalada xabsigu yaadaan Frank laakiin ninkan nin joogo ma markii dambe la ninka ilaalada xabsigu isku dayno birta kala soo baxay gacantiisa oo isku dayno madaxa meesha la taabto laakiin nasiib darradiisa madaxan caag ayuu haaba isla markiiba warka uu gaarsiiyay ilaalada xabsiga waxaana la bilaabay baaritaan aad u weyn baaritaanka markii la bilaabay xataa FBI Mareykanka ay la hadlay inay ka soo qayb galaan baaritaanka maxaabiistan wayna ka soo qayb galeen isla markiiba waxa loo yimid qolkii Frank Morris ku xigay waxaana deganaa Alan West ninkii xalay baxsan kari waayay gidaarka burburiyay laakiin gidaarku furmi waayay isla markiina waxa cadaatay inuu ninkani kamid ahaa saddexdii nin baxsaday uu isagu afar ku ahaa Alan West laakiin waxyaabo aad u fara badan ay ka qariyay sida markay saddexdan nin magaalada galaan San Francisco kala markay galaan waxyaabo ay sameyn doonaan xaqi tagi doonaan wax walba uu ka qariyay soo kale xataa waxa la wareystay maxaabiista xabsiga oo dhan dhamaantood waa la wareystay mid kamidana muu sheegin arrin ku saabsan saddexdan nin baxsatay FBI xabsiga ilaalada xabsiga waxay bilaabeen markaan helicoptero maraakiib wax walba adeegsadaan oo jasiiradii xeebta iyo meel walba baaraan laakiin way ku guul dareysteen oo soo waayeen rag meel ka baxeenba saddexdan maxbuus ee baxsaday ilaa waqti xaadirkan meel ay ku sugan yihiin meel ay tageen toona lama garanayo FBI Mareykanka ayaa 15 sano kadib waxa soo saartay warbixin ah in saddexdan nin ay bad u liqday oo barta ku dhinteen waxyaabo aaneynaysan waxa kamid ah jaakadihii roobka ay ka xidhanayeen ay ka sameeyeen doonta ay ka heleen badda sidoo kale waxay ka heleen sawiraan xasuus oo ay lahayn labadii walaalo ee Angeline waxaana sheegnay FBI inay sawiraantaas xasuusta familkoodu lahayn labadan walaalo ay kaalin aad u sarreeyay ugu jirtay oo aanay marnaba ka daatan ama aanay tuuran haddaanay dhiman mooye laakiin FBI maskaxdooda mala waxa ka maqneed niman xorriyadoodii helay sawiraan iyo xasinaan faa'iido u lahayn hooyadooda hadii sawirkooda xataa iyadoo nool ay ugu tagi doonaan magaaladoodii marka sawiraantu wax macna inaanay u lahayn ay maskaxdooda ka maqneed khubarada qaarkood xataa ka soo horjeesta warbixintan FBI oo idhaaday hadii ay bad u liqdeen nimankaas
meydkooda soo tufuleed oo meelaha xeebaha lagu arki lahaa meydkooda. sawirkan ayaa la sheegaa oo soo caanbaxay sanadii 1965 inay yihiin labadii walaalo ee Angelina. waxaa la sheegaa inay tageen dalka Brazil oo nolol cusub bilowdeen, xaggaasna ay kaga nasteen Mareykanka iyo xabsigiisa. laakiin sawirka laftarkiisa la isku haystaa ma labadoodiiba mise labadoodii maahan, sababtoo waxaa dhici karta inay shakhsi ahaantooda bedelaanba ama ay qaab muuqaalkooda bedelaan. baxsashada xabsiga Alcatraz 1962 isla sanad kadib 1963 xabsiga waa la xiraa sabab ay u aaneynayeen dalka Mareykanka maadaama dhaqaalaha fara badan ku baxayay xabsiga ilaaladiisa iyo maxaabiistan ilaaladoodaba. laakiin dad badan ayaa qaba in baxsashada Frank Morris iyo labadii walaalo Angelina ay sumcad dishay xabsigan, sida darteedna loo xiray. maxaabiistina waxaa loo gudbiyay xabsiyo kala duwan oo dalka Mareykanka. xabsiga Alcatrazna sidoo u dhamaa sanadii 1963 ayaa albaabada la iskugu laabay. waxaana qisada laga sameeyay filim la yiraahdo Escape from Alcatraz, ka baxsashadii xabsiga Alcatraz. muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay. fadlan haddaad noo cusubtahay subscribe saar, siina share gara muuqaalkan oo asxaabtada inta jeceshay la wadaag. haddii aad jeceshay qisooyinka noocan oo kalena commentigoos noogu reeb. wassalaamu calaykum.